dekada taariikhdeedii hore marka dib loo yaro loogu noqdo jati la sameeyo ama meel markab ku soo xidho markii u horreysay la sameeyay waxa ahayd baan filayaa 19 taariikhda wixii ay dee qoran aynu hayno 1945 meel markab weyn ku soo xidhan karo waxa jiri jirtay markii hore maraakiibtu inay badda joogto dabadeedna boots lagu soo qaado cargo-ga oo dabadeedna la keeno maadaama aanay jirin meel uu markabku dheeg ku soo dhigo oo ku soo xidho oo dhisan aanay jirin markii markaa la dhisay deegyadii ugu horreeyay waxa ahayd 1945 waa jatiga imika oldka ah ee dhisan guud ahaan waa la tusi doonaa insha allah waxa ku xigtay markaa in dekad rasmi ah markii la dhisay waxa ahayd 1968 waqtigii ruushku uu inala macaamili jiray wuxuu inoo dhisay 300 oo mitir iyo warehouse yo aydan arki doontaan insha allah taas oo marka dekad la samaynayo ee la dhisayo dekada standard wax loo baahanayaa marka horeysa godnaanta in la helo la markabkii markuu doonayo inuu ku soo xidho wuxuu u baahanayaa inaanu gaadhin inay godaato aanu markabkii aanu gaadhin dhulkii hoose marka wax loogu talagalay wax la yidhaahdo draft baa loo sameeyay depth baa loo sameeyaa marka wuxuu sameeyay waqtiga ruushku key wallkiina wuu sameeyay waxa kaloo laynoo sameeyay depthkii oo ah ka bilaabmaya min 9 mitir ilaa iyo 10 mitir 300 oo key ayuu sameeyay key wall waxa ku xigtay 1968 kii ayaa waxa Mareykankii ku daray shirkad Mareykanka ku dartay 350 kale oo mitir oo iyadu ka sii godan tii hore oo ilaa 11 mitir ah totalkaasu markaa wuxuu noqonayaa oo intii aanay dibwel markii dambe la wareegin maamulka dekada operationkeeda 650 kaas ayaa jiray markii hore 650 kaasu waa kaalkii markabku ku soo xidhanayay waxa weheliyay iyaduna yaadkii ka dambeeyay ama spacekii saac ka dambeeyay ee la dhigayay cargo-ga wax la habeeyay geydadkii laga soo geliyay maadaama marka horeysa dekad la sameeyo waxa la sameynayaa kaalkii dhulkii markabku ku soo xidhanayay meeshii alaabta la dhigayay oo ah barxadihii iyo geydadkii laga soo geliyay ama laga baxay 2017 baa markaa dibwel operationkii la wareegtay maamulkii operationka waxay ku dartay 400 oo mitir oo markaa u khaasa containerka kaliya tii horena repairs bay ku samaysay laakiin may caawiyaan waxba kamay bedelin debtkii ama soo godnaantii laakiin infrastructure intii kale waxbay ku kordhisay marka totalka iminka kii langidkeenu maraakiibta ku soo xidhata waa 1,050 mitir 1,050 mitir wuxuu leeyahay meel la yiraahdo rooradu wax weeyaan maraakiibta qaarkood baa dheega aan wax laga soo dejinay furta dabooyinka xagga dambe ay furtaan ama dhinaca marka waxa loo baahdaa gaar ahaan in markabku si qaab khaas ah u soo xidho taana marka waa lagu yana waynu leenahay facility-ga guud ahaan marka dekada maxaa la 400 ee mitir ee cusubi godnaantoodu waa 16 mitir weeyaan marka energy markab kasta oo maanta adduunka maraya ku soo xidhan kara waxa lagu rakibay 400 mitir ee loogu talagalay containerka businesska adduunka badankiisu hadda waa container waxa kale sidoo inanku inoo sheegay waxa weeyaan alaabada furfuran election cargo-ga ama si alaabada furfuran iyadu wali waa minimal way yaraan sanad ka dambe si yaraanaysaa oo cargo-gii wax lagu guraya container lagu ridanayaa sababta oo ah safety-ga inay alaabtii si wanaagsan ay qofkii consignee-ga ama silaha alaabta ay ugu safe garowdo containerku wuu ka safety badan yahay cargo-ga ayuu ka safety badan yahay marka wax lagu rakibay waa arki doontaan kareema u khaasa oo loogu talagalay maraakiibta containerka waxana laga soo dejiyo waxana lagu saaro kuwaasoo iyaguna iminka tiradoodu tahay 3 kareeno waaweyn kareemadaas waxa weeyaan kareemadii noocii ugu dambeeyay adduunka weeyaan waydan ogtihiin
in positionka dekedeenu markii la sameeyey daraasadda ama si adduunku baananka adduunku ay sameeyeen ama la sameeyey waxa laynoo reedgarayay berberi inay tahay the second port in Africa positionkeenu yahay ratingka lagu sameeyay muxuu ahaa serviceka aynu sameeyno la waxaad ku xirantay consignee waxa dekada isticmaalaya waa customer marka priority-ga aynu leenahay gidigeen ba ama hadafkeenu iyo waxayaan sidii aynu customer iyo investment heli lahayn oo uu kori lahaa wadankeenu oo ay noogu soo adduunku ay iman lahaayeen oo business maalgelin ay u gashan lahaayeen taas waxay ku xiran tahay habka aad u service garaynayso oo any ship markab kasta oo ku soo xidha berbera waynu handal garayn karnaa waxaynu handal garayn karnaa markab kasta oo berbera ku soo xidha oo height kasta way maraakiibtu height-kooduna hadda kuwan cusub ee modern-ka ay height-kood kor buu u kacaa marka waxayaan waa inaad haysataa markab saqafka dhaafaya oo height-kiisu yahay marka waxaynu gaadhay we are more than the limit baynu joognaa productivity ama si aynu u dejinaa oo kareemadana noogu dejiyaan waxa weeyaan containerka u khaaska ahi si speedka ama si efficiency-ga uu u koro oo aad ila waxaynu doonaynaa waxaynu wax ku helaynaa waxaynu leeyahay service-keenu bixinaynaa muxuu yahay markabka ku soo xidha dekada inuu limited hours ku joogo waayadii hore 7 casho 8 casho joogi jiray iminkana waa saacada lagu xisaabtamaya taasuna maxay tahay kareenka aad ku shaqaynaysaa inuu haysto facility ay ku rakiban yihiin aad samayso saacadii walba KPI ayaad yeelato KPI-gaasuna waxa weeyaan waa norms aynu ku wada dhaqmayna oo qof waliba uu ogyahay in laga doonin lagu xisaabtamaya oo ah ugu yaraan standard KPI-gu waa 26 container per hour waaye laakiin iminka maxaynu samaynaa more than 30 marka mar walba hadafkeenu waa maxay waa inuu ka badano limitkii laynoogu talagalay kareemadu waxay leeyihiin facility ay container kaliya ka wax ka badan soo dejiyaan twin containers inaad soo dejin karto waa facilities kareemadu waxay leeyihiin awood ay waxay miisaan kasta ilaa more than 100 tons ay soo dejin karaan waxaad la xisaabtamaysaa waxa weeyaan adduunka inaad ka noqoto standard aad gaadho standardka lagu shaqeeyo debskina waynu sheegno waxa weeyaan any ship soo xidha oo dekala ku soo xidhna maadaama uu 16 meters deep yahay waa standardka ugu fiican ee ay adduunka ku socdaan marka kaana la markuu doonayo inaad dekadii samaysto waxaad ku xisaabtamaysaa debtka marka baddaada uu ku soo xidhanayo kareenka aad ku shaqaynaysaa height-kiisa outreach-kiisa inaad iyo markaad wixii soo dejiso efficiency-gii yaadkii ay qabanayeen marka waxaynu haysanaa yaadhkeennana ama si meesha barxadda la dhigo waxay noogu rakiban kareemo layado RTG so waad arki doontaan marka ay dibadda u baxdaan waxa la doonayaa marka waxaynu haysanaa gawaadhi dekadu leedahay oo isku xidhaya oo ah bridge-kii isku xidhaya kaalka iyo barxaddii markabkii marka laga soo dejiyo kuwa tarilayaashaas marka dhinacii balaaninka waynu ka dhisannahay dhinacii operationka waynu ka dhisannahay waxaan jecelahay markaa dib inta ayaan ku soo koobo waxaan jeclaan lahaa haddaydin wax su'aal ah aydin doonaysaan inaad wax igu weydiisaan container terminalka waxay ku xidhan tahay size-ka maximumka hadda ku xidhan kara waa laba marka wax badan kuma xidhan karaan waa maximumka iminka wax ka badan laba kuma xidhan karaan sababtoo ah maraakiibta langidkoodii baa iminka koray waxaadna filaysaa dee inaad maraakiibta waaweyn adduunka iminka ka gooshaa inay ku yimaadaan markuu markabkii ilaa 300 oo mitir gaadho kiigaagina uu yahay 400 marka only you will be limited to one marka it will depend on the size of the length of the ship ay ku xidhnaanaysaa taasay ku xidhnaanaysaa haddii uu u baahdo dhakhtar dabadeed benefitskay ku jirtaa marka uu dhakhtarka baanu leenahay clinic baanu leenahay marka la abuurgareeyo dhakhtaradeenna iyo dhakhtarka looka cliniga iyo dhakhtaradeenna caasimaddu marka ay confirm garayaan la confirm gareeyo marka haddii laga maarmi waayo dabadna wuxuu leeyahay waxay ka mid tahay qayb bay ka mid tahay heshiiskaasi ka mid tahay soomad gar wax alaale iyo wixii labor loogeenu ku jirta ka taran gabdhaha oo kale marka umulhabta oo kale
period bay leeyihiin 4 months like that waxa la wixii labor looga uu ogol yahay oo dhami waa inclusive waxaa jira iyaguna shaqaale aad u fara badan oo ay ka mid yihiin malawaad maqashay geelaha waa kuuligan maraakibta marka alaabta laga soo dejinayo badanaa qaar weysu kaargoogay ba wax ka soo dejiyaan qaarna waxa weeyaan waxay marka la soo dejiyaa bay gawaarida saaraan ama gawaarida ka dejiyaan way madax bannaan yihiin marka waxaa jira shaqaale fara badan oo la yado faracad iyo geelle iyo hoosgale iyo geeljiid iyo oo aad u fara badan kuwan garbageska marka maraakibta laga soo dejinayo waa ka soo dejiya waxaa jirta teleclerks qolo iyaduna team ka mid ah oo iyaguna private iyaguna ah oo iyaga teligaba sameeya dekada waa private companies laakiin wixii DP World roolkeeda ku jira waa 1200 meelahaas haddii shaqo loo baahdo waxaanu leenahay wax la yiraahdo gorobolosigu waxa weeyaan wax la samaynayaa wax laga yaabaa in loo baahan yahay ilaa 10 qof 10 qof ee loo baahan yahay waa la announce garaynayaa waxaa jirta website khaas ah oo taal loo sameeyay marka la announce waana wax yeer la ku xidhan marka la announce garayo waxa soo apply garanaya marka applicantskii ama dadkii deebaana inay apply garayaan marka waxay noqonaysaa in marka uu horeysa qofku soo apply garayo steps baa la maraya stepskaas marka uu horeysa qofkii wax loo sameeynaya wax la yiraahdo telephone baa lagu xiriiraya qofkii waa la wareysanaya wareysiga u horeeya marka uu ka soo gudbo dabadna maraaxil kale uu maraya oo qofkii la sheegaranayo IQ-giisa oo qofkii dabadeedna la marinayo qaybtii uu soo dalbaday u baahnayd ilaa waxa weeyaan technical baanu leenahay operation baan leenahay security baan leenahay HR baan leenahay customer service department baan yani way badan tahay maamulku marka hadba qaybtii dalabku isaga laftiisa soo apply gareeyay ba marka yana gelaya interview buu gelaya marka policy-gu qofkaas wuxuu gelayaa wax la yiraahdo growth baa la yiraahdaa horumarin buu gelayaa inuu muddo joogo 2 sanadood buu markaa wuxuu ku shaqaynayaa growth statuskii macnaheedu u barto qaybtii uu markaa isagu abalagariyay oo soo enroll gareeyay 2 sanadood wuxuu leeyahay ikhtiyaar horta marka uu horeysay hadduu shaqadiisii guto waa la positionkiisii waa la confirm gareynaya payrollkii buu gelayaa hadduu isagu markaa aanu isbedel isaga laftiisu wuxuu leeyahay xaq haddii aanu ka maarmo uu markaa hadduu doono iska gaba noqon karo laakiin 2 sanadood salary buu leeyahay laakiin payrollkii rasmiga ah ma gelin wuxuu gelayaa after 2 years mar bay ka yaraataa waxay ku xidhan tahay isaga iyo horumarkiisa laakiin kontraktku marka hore waa 2 sanadood kaasun baa imika lagu shaqeeya waana lagu najaxaaday agaraya barnaamij wuxuu noqday najaxaad oo wuxuu ka noqday bias baanu ahay bias muxuu yahay in qofkii qof wado in recommendation laga baxo inuu qofkii xor ahaado isagu soo apply garayo markuu soo apply garayana isaga iyo weeyaan kartidiisa ay noqoto
marka caadiyan dekada laba qaybood weeye qaybta koowaad waa GC ama General Cargo Terminal iyo qaybta labaad oo ah Container Terminal. Container Terminal marka halkan joognaa waa phase 1 oo Container Terminal area ayaan joognaa. marka aynu labada qaybood ka hadlayno waxaan handle gareynaa ama aanu ka shaqeynaa Container Terminal markaan joogno waxaan ka shaqeynaa kow dhammaan maraakiibta containerada discharge-kooda iyo loading-kooda in la sameeyo oo waa vessel operations wixii container-ha in laga shaqeeyo. marka area-dan aan joogno amba container terminal wax bagaash kama soo degaan waa containerized oo qura waxaana lagu soo xiraa wixii container sida maraakiibta containerada sida qura. qaybta kale GC-ga waxa lagu soo xiraa wixii sida badankeena waxa ugu badan isticmaalo waxa raashinka maraakiibta raashinka maraakiibta bagaashka maraakiibta sidoo kale waxa lagu soo xiraa soo dejisa alaabta la yiraahdo bulk cargo-ga oo tusaalahan oo kale waxa la keenaa sibirkii oo maraakiibta qaar baa waxay keenaan sibirkii oo haajka dhixiisa ku daadsan oo package gareysnayn kadibna sibirkaas packaging lagu sameeyo dekada gudaheeda isla markaa gudihiisa ayaa package kaas lagu sameeyaa tusaalahan oo kale daqiiqadii baa kala kamid iyadana saas oo kale loo keenaa waxa kamid ah tusaalahan oo kale garowga oo kale iyo waxyaabo noocaas oo kale oo inta ama sokorta oo kale iyo section walba ama madaxa noqoto ama supervisor ha noqoto ama ka sii hooseeya noqoto wuxuu u yidminayaa qof walba inuu ilaaliyo safety-ga taas waa tukood sidoo kale cid kastoo dekada timaada oo customers ama loo adeegayo iyadana waxa mas'uuliyaddeedu saaran tahay in la ilaaliyo badqabkiisa meesha uu marayo halka uu tagayo meelaha la marayo tusaalahan kale dekada kale pedestrian area meel la lugeyn kara jira meelaha ay mamnuuc tahay tusaalahan kale maanta qof kasta maraan alaabtiisii dhaawacnay kiis baariseed baa la furayaa la oranayaa waa investigation baa lagu sameeyaa ama baaris baa lagu sameynayaa sidee wax u dhaceen kow waxay ka dhaceen qofka khalad qofku uu sameeyay waxay ka dhaceen organizational factors oo ah organization kan qalabkii ku haboonaa bixin oo tusaalahan kale qofka shaqada qabtay waa competent ama shaqadii loogu talagalay khibrad buu leeyahay laakiin wixii ku haboonaa baan la siin organizational factor waxay noqon kartaa environmental factor oo wax labadaba ka baxsan bay noqon kartaa organization kana aan ku xiriirin qofkana aanu la xiriirin maxay noqon kartaa baaristii baa la baaraya root cause-kii baa la sameeyaa marka waxa keenay shilkan keenay marka root cause-kii la ogaado si aanu berrika maalinkiiska u dhicin waxa la diyaarinayaa control measures-kii amba preventive actions-kii keeni la in laga hortago shilkan oo kale inuu berrika maalin dhicin oo tusaalahan haddii maanta aan ku khasaarnay container aan dejinaynay inuu dhaawacmo oo alaabtiisii ay ku dhaawacanto iyadoo laga soo rogayo wiish soo rogayo uu dhaawacmay berri toole diyaar uma aha organization-ku inuu mar labaad khasaaro waa in markaa wixii hore la darsaa wixii khaldanaa la saxaa taasina waa koorka saddexaad ee ay tahay qof organization-ku markuu safety-ga ka hadlaya inuu awood saaro Gracias.